السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muuqaalka waxaanu ku soo qaadanaynaa tuumarka ama burada kansarka ay ka soo baxda xubinka taranka ragga ee aakhirka sababta in markaas xubinka taranka ninku kansar ku dhaco kadibna xubinka taranka la gooyo oo sida xubinka taranka ninka looga jaro. buradaasi calaamado ay soo bixiso ayaynu insha Allah halkan ku tilmaami doonaa. horta waxa jira xubinka taranka ninka nabaro badan oo ku samaysmi kara finan ka soo baxa oo iska bogsada boogiyaduna ku samaysanta oo ay keenaan xanuun kamid ah xanuunada lagu kala qaado gogosha oo iyadana marka xanuunka laga daweeyo iska bogsata. laakiin tani ama buradan sababi karta kansar ku dhaca xubinka taranka ninka calaamado ay leedahay oo ninku hadii uu isku arkay loo baahan yahay si ugu dhaqsaha badan ugu fudaydka badan ugu degdega badan oo dhakhtar la kulmo hadii uu isku arkay boogta noocan oo kala ah ama burada noocan oo kala ah hadii xubinkiisa taranka uu ku arkay ayaa ah mid markaas looga shakiyayo inay tahay buradii kansarka sababaysay ee xubinka taranka ninka ku keenaysay in markaa la jaro. calaamada koowaad waa buradaasi marka koowaad inaanay wax haba yaraatee xanuun aanay ku bilaabmin cuncun aanay lahayn itching iyo inflammation midna aanad ka dareemin cuncun iyo xanuun midna aanay lahayn way soo baxaysaa fin meesha iskaga yaala camal ayuunbuu ahaanayaa. marxaladda kale ee lagu arko waxa kamid ah buradaasi inay weynaanayso iyada oo ku weynaanaysa cuncun la'aan iyo xanuun la'aan yacni way koraysaa buradii laakiin wax xanuuna adigaan dareemin waa ku arkaysaa un fin meesha kaaga soo baxay wuu iska sii weynaanayaa se laakiin wax xanuuna kuma dareemaysin bilaha hore oo dhan. marka uu dhowr bilood kugu yaalo oo si tartiib ama si gradually uu korayay oo tartiib uu weynaanayay ayaa marka dambe afka hore uu ka soo wax cali ay kaga samaysmayaan oo markaas adeecaan moodaysa afka waxa caday ku samaysmo iyadana muddo ayay arintaasi kugu sii ahaanaysaa oo aanad wali xanuun badan aanad ka dareemayn buradina ay sii soconaysa. marka ay xaaladani sanad ku dhawaato ayuu afkiisu dilaacaya markaas ayaa waxooga xanuuna isku arki doonta. hadii marka koobaad ee buradu ay bilaa dhibka tahay ee aanay cuncun iyo xanuun midna aanay lahayn la maamulo oo dhakhtar u arko way fududahay dhakhaatiirtu tilmaamayaan in laga remove gareeyo unugyada ama saliskaas uu kansarku ku dhacay ee xubinka taranka ku sii baahaya in si fudud looga jaro. laakiin markan dambe ee afku dilaacay ee boogti iyo buradii muddo badan ay kugu daalay xubinkii meelo badan bay qabsanaysaa taasina waa ta aakhirka ama eventually-ga keenaysa in meesha ay ka soo baxday oo dhan la jaro oo xubinkii taranka qayb kamid ah la jaro. marka hadii aad isku aragto finka noocaasa ama boogta noocaasa ama burada noocaasa ee sii koraysa ee aan ku xanuunaynin ee marka ka dambaysa sii weynaanaysa sida ugu dhaqsaha badan goob caafimaad u tag si xaaladan loo daweeyo. markasta oo xubinkaaga taranka aad ka dareento fin soo baxay waa markasta oo loo baahan yahay inaad fiiro gooni aad u yeelato. laakiin raggan waa iska dhayalsadaan nin baa ku oranaya finanka xubinkayga taranka muddo dheer bay ku yaalaan wixii wax iska caadi ah buu arkaya waliba hadii finka ama boogta ama nabarka xubinka taranka ka soo baxay aanu caabuq lahayn oo aanu xanuun lahayn oo aanu cuncun lahayn oo aanu kaar lahayn wax dhiba oo haba yaraatee ninkaasi uu ka dareemayaaba aanay jirin waxaaba laga yaabaa inuu arintan uu careless ka noqdo oo aanu gabi ahaanba dhag jala u siin. laakiin waa halis waana fin ama boog kugu keeni karta ama buro markaa haday qaab ka tahay inay kansar noqoto xubinkaaga taranka hadhowto la jaro. intaas ku soo ururaya. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.